madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waa madaxweynihii sagaalaad ee taariikhda soo mara Soomaaliya waxa uu leeyahay taariikh iyo waayo aragnimo dhanka siyaasadda Soomaaliya. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka mid ahaa qurbo-joogta Soomaaliyeed ku nool dalka dibaddiisa. Waxa uu dhashay 5 May 1962 waxa uu ku dhashay magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho. Waxa uu ka soo jeedaa qoys dhanka siyaasadda laga yaqaano. qoyskiisa ayaa qaar ka mid ah waxay ka tirsanaayeen ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL. waxa uu asaasay xisbiga ugu horeeyay ee madax bannaan ee ka jira Soomaaliya sanadkii 2010 ayuu wax badan ka bedelay qorshaha noloshiisa. booqasho uu ku tagay New York madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa uu weydiiyay inuu lama ula qaato ninkan aadka loo jecel yahay dhanka siyaasadda, waxaana uu ka waraystay arrimo ku saabsan arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxaa loo magacaabay bishii November 2010 ra'iisul wasaarihii Soomaaliya, waxaana uu xilka hayay ilaa June 2011 kadib waxa uu asaasay xisbi siyaasadeed lagu magacaabatay, waxaana uu qurbo-joogta ugu baaqay inay dalka dib ugu soo laabtaan kuna soo celiyaan xasiloonidii siyaasadeed ee laga gudbay, wuxuuna ugu baaqay in laga gudbo wixii ka qarxay dagaaladii sokeeye sanadkii 1991 Soomaaliya. Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqasho dhawaan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa doorashadii dhawaan ka dhacday Soomaaliya ayaa waxa uu ka jeediyay khudbad taasi oo ujeedadu ay ku saaleysnayd xisbigiisa, waxaana ugu baaqay inay dadka midnimo qaran uu gaarsiin doono iyo dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaabna uu dagaal la gali doono. sidoo kale waxa ugu baaqay inay siyaasiyiinta ay ka qayb qaataan isla markaasina siyaasaddiisu ay ku dhisan tahay daacadnimadii hore looga bartay. mudaharaadyo waaweyn ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya oo lagu taageerayo doorashadii dhacday 8 February, waxaana ay ka dhacday dalka Soomaaliya, waxaana sidaas ku noqday madaxweynihii sagaalada gal aqalka looga arrimiyay Soomaaliya Villa Soomaaliya. xafladii caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madax badan oo dalalka saaxiibka yihiin Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka Farmaajo.